wuxuu leeyahay caruurtiina halaynina oo hadirina gaajo idin haysato iyo faqri idin hayo dartii ha u dilina sababka ilmahooda ay u laynahayaan waa midkaa weeye ilaahay baana ka jawaabay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaan ku soo jirnay dardaaranadii tobanka ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fi suurati ancaam u noogu tilmaamay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى آيات وحنوغو تلمامها dardaaranno dhowr ah waxaanu soo qaadanay oon soo tilmaanay dardaarankii koobaad waxaan soo tilmaanay dardaarankii labaad maantana waxaan tilmaamaynaa dardaarankii saddexaad oo allah subxaanahu wa tacaala u nasinayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq ha dilina caruurtiina iyo awlaadiina ha dilina gaajo darteed ha u dilina annaga ayaa arsaaqayno naxnu narsuqukum annaga ayaa idin arsaaqayno wa iyaahum iyaguna annaga arsaaqayno adinka iyo iyagaba allah subxana wa tacaala wuxuu leeyahay annaga idin arsaaqayno dhowr su-aalood ilmaha maxay u laynayaan sababta ilmahooda ay u laynayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu oga celcelinahayo oo nooga reebahayo oo ilmaha loo laynahayo horay iyo haddaba maxay tahay sababta su-aasha labaad waalidka xaq miyay ku leeyihiin ilmaha ayaduna waan arki doonaa waana ka jawaabi doonaa waana faahfaahin doonaa su-aasha xigta nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinkan muxuu ka yidhi ayaduna waan arki doonaa insha allahu tacaala jawaabteeda maqsadka shareecada islaamka ay ka leedahay nahyigan iyo reebiddan maqsadka iyo ujeeddada ka dambaysa maxay tahay oo shareecadu tilmaantay qodobadaas oo dhan baan insha allahu tacaala ku qaadan doonaa dardaarankan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasiinayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay caruurtiina halaynina oo hadirina gaajo idin haysato iyo faqri idin hayo dartii ha u dilina sababka ilmahooda ay u laynahayaan waa midkaa weeye ilaahay baana ka jawaabay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi adinkana annagaa idin arsaaqayno ayaga owlaada ahna annagaa arsaaqayno ilaahay baa arsaaqdooda mid walba ka faala qaaday sababka ay u dilahayaan waa midka ah waxaa kaloo ka mid ah sababka ilmahooda ay u laynayaan caadadooda iyo dhaqankooda wuxuu ahaa in ay gabdhaha ay nolosha ku duugaan ayagoo ka baqahayo ceeb iyo dhibaato inay u soo jiito sabab
kamid ah iyo asbaabta ay u dili jireen ilmaha. wiilashana way dili jireen ayagoo ka baqahayo faqri iyo dhibaato iyo waxyari. mar saddexaad awlaadooda waxay u dili jireen oy dhihi jireen waxaan ugu dhowaanaynaa asnaamteenna, ilaahiyadeenaan ugu dhowaanaynaa. dhagaxyadii iyo axjaartii iyo wixii ay caabudahayeen oo gacantooda ay ku samaysteen iyo ilmahoodii inay ugu dhowaadaan darteed ayay u gowracayeen ilmahoodii iyo ulaynayeen. ayib, su-aasha isweydiinta le marka waxay tahay xaq ilmaha waalidka ma ku leeyihiin? jawaabtu waa haa. caruurta gabdho iyo wiilalba waalidka korkiisa waxay ku leeyihiin xuquuq. xuquuqda waxaa ka mid ah inaysan sabab ugu noqonin ilmaha wax gaarsiinahayo inay dhintaan. wax kastoo sabab ugu noqonahayo ilmihii inay dhintaan inay ka ilaaliyaan ba ay xaq ugu leeyihiin. hadday tahay dhibaato iyo gaajo inay ka ilaaliyaan wey. tarbiyadooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda inay wanaajiyaan, intay yar yihiin ay toosiyaanna xaq bay ugu leeyihiin. haddii uu weynaado uu qaangaaro, markaa laba qof baad kala noqonaysaan. keliya siladii iyo waxa uu idinka dhexayso iyo waalidnimadii iyo xiriirkii raximka unbaa idinka dhexeeyo. marka wixii khalad uhuu la yimaada asaga qaadan, adigana wixii wanaag ah iyo gelisay ajarkoodaad leedahay, haddaad dayacdana dembigeedaad leedahay. arrinkaa nabiga calayhi salaatu wassalaam sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u reebay, maadaama nabigana uu ahaa calayhi salaatu wassalaam mid qur'aanka sii fasirahayo oo sii caddaynahayo oo sii bayaaninahayo, isagana muxuu ka yidhi? nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, waa la weydiiyey, su-aal baa la weydiiyey, waxaa la yidhi dembi la galo kee ugu weyn? markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, an tajcala lilaahi nidda, allihii ku abuuray, ku ahaysiiyey, ku khalqay inaad mid la mid ah inaad u yeesho, inaad wax la wadaajiso, dembi la galo kaasa. markaasaa waxaa yidhi buu yidhi saxaabigii, huma ayun, dembiga kale oo weyn oo kaa ku xiga kee weeye? markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, in la dilo awlaadda ayadoo laga baqahayana loo dilo inuu kula cuno oo kula quuto la jirkaaga. ilmahaadi inaad u disho ka cabsasho aad ka cabsanayso wixii aad cunaysay inuu kula cuno, waa dembiga labaad oo dunuubta waaweyn ka mid ah buu nabiga calayhi salaatu wassalaam. markaasaa nabiga su-aal saddexaad buu saxaabiga weydiiyey, wuxuu yidhi, huma ayun, nabiga ilaahayow dembiga kale oo saddexaadoo ku xigo kee weeye? markaasuu nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi, an tazniya xaliilata jaarik, dariskaada, qofka dariskaaga ah xaaskiisa inaad ka zinaysato, u dabamarto, ayadana waa dembi weyn. zinada ka sokow waxaa kalood ku xadgudubtay xaqi darisnimada oo qofkan walaalkaa ah ama qofkan dariskaaga ah uu kugu lahaa. mar dembi baad ilaahay ka gashay, marna dariskaadii baad dembi ka gashay. marta sidaa darteed buu u weynaaday. markaasuu wuxuu akhriyey cabdullaahi bnu mascuud aayaddan uu akhriyey, wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaaha aakhar ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر waxay la mid tahay an tajcala lilaahi nidda, inaad ilaahay u yeesho wax la wadaago.
walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahuna waxaa weeye inaad ilmahaadii dishaa soo gelayso, cabsi aad ka baqayso inay la jirkaada ay wax cunaan. ayib, walaa yaznuun ayadana maxaa soo gelaya? zinadii. waxaa soo gelaya dariskaadii ood ku dhaqaaqdo oo macaasi iyo dunuub aad ka samayso ayaa soo gelayso. waxay aaminsanaayeen dadka taajirnimada iyo ghaninimadu inay ku imaado awlaadda yar, iyo inay ku imaado taajirnimadu xoolo badan inuu qofka haysto. sidaasay aaminsanaayeen. ilmaha hadday yar yihiin waa taajiraysaa, maal baad yeelanaysaa. asbaabta maalka lagu yeesho lagu taajiray ka mid tahay. saa darteed bay ilmaha u laynahayaan, u dilahayaan, dembiga intaa la eg ay u gelahayaan. taasuuna ilaahay subxaana wa tacaala noo dardaarmayaa inaan iska jirno, iska ilaalino muctaqadka iyo ictiqaadka nooca ahna uusan dadka gelin. ayagana ilaahay baa arsaaqdooda kafaalo qaaday, adinka arsaaqdiina ilaahay baa kafaalo qaaday, ayaga arsaaqdoodana ilaahay baa kafaalo qaaday subxaanahu wa tacaala. kuma xirno arsaaqda awlaad yari, kuma xirno, bal cagsigeedaaba muuqato oo waaqic ah. waxaad arkaysaa qof faqiir ahaa oo waxba haysanin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu guursaday oo uu canugu u dhashay arsaaqdii ilaahay u furay. mid labaad baa u dhashay, ilaahay baa arsaaqda usii waasiciyey. maxaa yeelay canugan risqigiisuu wataa, adigana kaagaa wadataa. waa lagu barakoobaayo waa lagu taajiraa. maqaasida waaweyn ee shareecada guurka iyo nasliga ay ka leedahayna waxaa ka mid ah in taranka la badiyo, nasliga in la badiyo ayaa ka mid ah. nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wassalaam. wuxuu yihi nebiga ilaahayow, waxaan helay oo arkay qof dumar ah oo qurux leh oo sharaf leh, laakiin wax ma dhasho. ma guursan karaa? markaasuu nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wassalaam, maya, ha guursanin. mar kale haddana u yimid nebiga calayhi salaatu wassalaam, haddana wuu ka reebay. mar saddexaad buu u yimid, markaasuu nebiga tala siiyey, go-aan buu siiyey, dardaaran buu siiyey. wuxuu yidhi tasawaju alwaluuda alwaduuda, waxaad guursataan midda alwaluud, midda dhalmada badan, haddana jacaylka badan guursada. fa inii mukaahirun bikum alumam buu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam. taa macnaheedu ma ahan qoftaa aan dhalaynin, sababtay doontaba ha ku imaadee, inaan la guursan karin oysan mamnuuc tahay ma ahan. waa la guursan karaa, laakiin talada uu nabiga bixinaya waxay tahay in laga hormariyo, awlawiyadana ay leedahay, mudnaantana ay leedahay midda dhalmada badan in la guursado. leannahu maqsadkii bay dabooleysaa, maqsadkii shareecaday waafaqaysaa, nasligii baa ku badanahayo, ku ziyaadahayo, muslimiintii baa ku badanayso. sidaa wey. halkaas ayaan wasiyadaasna ku joojinaynaa. hada wabilahi towfiiq, wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.